waxaa habeenkii xalay ahaa jaamacadda Beder lagu soo gabagabeeyay tababar aqooneed muddo 4 cisho ah ka socday jaamacadda waxaana tababarkan bixinayay khabiir sare Dr. Maxamed Xaaji Axmed oo ka mid ah dadka aqoonta dheer u leh shareecada islaamka waxna ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha waaweyn ee dunida ku yaala ugu horeyntii gudoomiyaha jaamacadda Beder Mubaarak Ibrahim Aar ayaa halkaasi hadal ka jeediyay markii kulliyada tarbiyadu aniga ay keentay codsiga oranaya doctorkii baa halkan wax ka jeedinaya oo barnaamijka qabanaya waan aqbalay kadib waxay igu xogsiiyeen lacag waxaan ugu talagalay inta inaanu charge karayno waxaan ku ri doctorku soo bilaash kuma dhigaya waxa la dhigaya soo shareecada islaamka soo ma aha lacag ma noqonayso go'aanka waanu qaadanay go'aan kalena war idinku darayaayo shahaadooyinkuna bilaash ma noqonaya annagoo dhiiri gelinayna in kor loo qaado runtii maqaasidda shareecada iyo barashadeeda isla marhaantaa soo dhaweynayna dadka runtii wax badan ku soo kordhinaya cilmiga iyo aqoonta shareecada waxaan u taaganahay Beder ahaan inaan dhiiri gelino waxa jira wax ilaa hadda ay ku gaadhi lahayn shareecada islaamka qawaaniinta wadciga usul fiqiga iyo qawaacid alfiqhiyya mustalah alhadith علوم القرآن علم الرجال مقاصد الشريعة إلا حتى قانون كوا جاري لا يا شريعة هالكي جاري إلا حتى علومتها علوم لمدة أو قانون كله متشرته ما قارون هانتي وأنا وهنتي علمك أوبا هنقف ربين الفقيه نقضاه إنه برتاعي تاعي geesta kalena Cabdirashiid Yuusuf Gaaxnuug oo barasara ka qaar ka mid ah jaamacadaha dalka madaxa kuliyadda waxbarashada ee jaamacadda Beder Jaamac Cabdi Maxamed isku xidhaha tababarkan ee Cabdalla Cabdiraxmaan Cabdilaahi Fayaad ayaa iyaguna dhankooda halkaasi hadal ka jeediyay barnaamijyada noocan oo kale dalka way ku yar yihiin seminaaro 4 cisho socda oo hay'adaha maalgeliyaan baynu naqaanaa laakiin waa ninka aqoonyahanka ee doctorka ah waa nin waliba majliska culimada islaamka xubinka ah weeyay ayaa barnaamijkan idin keenay kutubaha haysataan buu alifay markaa run ahaantii شرفت أي قيمة سو مدن هاي ونقول فرديا أنا قيمة شرفت ولي هي صاحبتنا ماذا أيان عاو صور راعي إنه رنتي هذا علنا الدكتور الشيخ الدكتور محمد ورنتي وحوي أفر مع الموت وأقون آد وعلوس هالكن النجوسيين جامعة بدر وحيو تاجنت هاي وعي قلنتا يهرمرنتا وحوي ضدك أقون تدونية kii koowaad ma aha insha Allah kii ugu dambeeyna noqon doono oo si joogta insha Allah barnaamijyada waan wadi doonaa dawladda waxa ka soo qayb qaatay 130 qof dawladdu waxay bilaamatay 18 bishan aan ku jirno Yanaayir waxaanay gabagabowday maanta oo 22 bisha ay tahay dhammaan muxaadaraadkii la ballan qaaday waa la dhigay ardaydu waxay qaateen kutubtii ay dawladdu ku baxaysay waxay kaloo qaateen fiidiyoyadii ama clipskina waa loo diyaarinayaa oo waxaan rajaynaynaa sida ugu fudud annagoo technology-ga isticmaalayna inaan ku gaarsiino arday wal oo ka qayb qaadanayay dawladan ugu dambeyntiina khabiirkii tababarkani bixinayay Dr. Maxamed Xaaji Axmed ayaa isaguna dhankiisa halkaasi ka hadlay jaamacadda Badar mid baan leeyahay oo aad bay u mahadsan yihiin jaamacadii waa hoggaanna waa aragti daadu intay doontaba hala ekaato laakiin hoggaan iyo aragti hadda isla jaamacaddu horay u tilaabsanaysaa Badarna way ka muuqataa inay jaamacad aragtiyeelna tahay hoggaan fiicanna leh sidan aan isugu nimid ay isugu kaana kulmisay ay isu kaana bartay hawshan oo soo gelisay baa astaan u ah maadadan cilmiga maqaasida ah runtii waa maado inagu yar annaga si ahaan horta adduunka oo dhan way yar cusub tahay oo cilmi ahaan way cusub tahay saan idin sheegay annagana maadaama aan cirif dunida kaga naalo wax walba garaf baynu soo gaaraan baan idin marka way nagu yar tahay kuma badna wadankeena saadarteed ayaan anigu xil waxaan iska saaray si gaar ah iyo xarunta aan ka tirsanahay oo markaas al-maqaasid al-buxuth wa daraasaad in cilmigaas la baahiyo dadkoo dhan la gaarsiiyo baahida aan u qabno darteed in inta ugu badan ee dadkeenu ay ka wada bogtaan gabagabadii waxaa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardaydii kala duwaneed ee tababarkani qaadatay ayaguna dhinacooda shahaado sharaf ku maamuusay doctorkan tababarka bixinayay Cali Fahad wararka saab Hargeysa daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogto daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayda Facebook si aad uga mid noqoto like gare sidoo kale subscribe gare bartayda YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka barnaamijyada iyo warbixinaha aan idin soo gudbino
meel kastoo aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg abka Saab TV sidoo kalena booqo website-ka sabtv.com fadlan nagu xidhnow adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo e-Dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida